bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaartana daawatay meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeenii gaarka ahaa ee aanu kaga hadlaynay wararka kooxda Barcelona inta aanu gudagelin barnaamijka waxaan idinkugu baaqaynaa inaad subscribe saartaan channelka Barka 252 sidoo kalena aad share gareysaan warbixintan idinku soo maqan aynu ku bilownay Emilian Pjanic ayaa horay u ogolaaday in heshiis 4 sano ah uu saxiixo kooxda Barcelona xidiga heerka caalami ee dalka Bosnia ayaa ogolaaday in heshiis 4 sano ah uu saxiixo Blaugrana isla markaana uu dhaqaaqo garoonka Camp Nou. Barcelona waxay markan diiradda saaraysaa sidoo kale xidiga qadka dhexe uga ciyaara kooxda reer France ee Lyon. kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa la soo warinayaa inay markan diiradda saartay xidiga qadka dhexe uga ciyaara naadiga reer France ee Lyon. jariirada AS ee ka soo baxda dalka Spain ayaa warinaysa in laacibka qadka dhexe ee kooxda Lyon Bruno Guimaraes uu diiradda u saaran yahay naadiga Barcelona. sidoo kale Atletico de Madrid ayaa isku dayday saxiix xidigan 22 sano jirka ah bishii Janaayo laakiin waxa uu doortay inuu ku sii nagaado garoonka Groupama Stadium liraahdo. kooxda Barca ayaana qarka u saaran inay tijaabiso nasiibkeeda ku aadan Bruno Guimaraes marka suuqa kale iibsiga uu dib u furmo iyadoo uu la dhacsan yahay qaab ciyaareedka naadiga Lyon ee xilli ciyaareedkan. xidiga reer Brazil ayaa dagaal kale la furay waa kooxda reer France ee Paris Saint-Germain isagoo diiday inuu yareeyo mushaarkiisa isla markaana uu weydiisto inuu xagaagan ka tago si uu ugu biiro kooxdiisii hore ee Barcelona. waa Neymar Jr oo isagu wali cadaadiska ku sii kordhinaya kooxda milkiyadeedu uu leeyahay ninka reer Qatar ee Sheikh Nasser Al Khalifa oo uu gabi ahaanba doonayo inuu isaga tago garoonka ay ku ciyaarto ee Parc des Princes xilli uu doonayo in mar kale Messi uu kula midoobo garoonka Camp Nou. Barcelona ayaana qorsheynaysa inay soo ceshato sidoo kale ciyaaryahanka la yiraahdo Cucurella iyagoo 15 milyan oo euro ka siinaya Getafe maadaama Junior Firpo ay dhigtay suuqa kale iibsiga. guud ahaan waa naga intaas wararkii kooxda Barcelona. share garee asxaabtaadana la sii wadaag qodobkii ku anfacana sidoo kale inoo soo gudbi.